waxaan run ahaantii si wacan u fahanay in wasaaradani ay tahay 4 wasaaradood oo isku raran oo malaha hawsheedu hawl yar ma waa mare waa hay'adda u egman jihaynta horumarinta hay'adaha dawliga iyo shaqaalahooda the organizational restructuring of the government iyo inay hanaankii ugu habboonaa u dhisan yihiin government ordinance act-ka iyo arrimaha ka falkamaya oo shaqada uu section xirku hayo iyo shaqada madaxweynuhu haya inay xiriirsan yihiin qorshaha qarankuna hawsha la dejiyo qorshaha qarankuna ay wasaaradaha ka socoto dadkii xirfadda u lahaa inay ka wadaan la hubiyo marka qaybta public sector reformka shaqaale carbisan firfircoon akhlaaqiyadkooda iyo aqoontooduna ay sareyso oo dhowrsoon oo intuu shaqaalaha rayidka soo galo muddo ku jira tababar hela horumar hela isagoo karaamaysan oo pension lena ka baxa ayaa hadaf u ah arrintaas iyo hay'ado u dhisan hab la janqaadaya baahida markaa joogta iyo prioritiska dawladda marka aagaas ama siidam inaad dib u furtaan ha noqoto ama tababarka shaqaalaha rayidka oo hadda dee adeega iyo dagaalka aynu ku jirno adeega iyo shaqo abuurka dalkan laga abuurayo uu aad u weyn yahay taa waan idinla garanay waanuna idinla shaqayn doonaa si dhow sidii gudda hoosaadyada iyo golaha wasiiradaba ay howlahaasi si degdeg ah u mari lahaayeen qaybta labaad waxaan u maleynayaa waa shaqo abuurka department baan hadda soo arkay labor and employment and job creation taasina waa shaqo dawladoo dhan inay iska kaashato ay u baahan tahay idinkuna hormuudad ka tihiin wasiirku wuxuu sheegay in guddi la samayn doono guddidaasina ilaa la isla hinjiyo oo dawladoo dhami ay ma arkaysaa yani shaqada la abuuraya wasaaradda shaqada dhexdeeda laga abuuri maayo beeraha laga abuurayaayo biyaha laga abuurayaayo sektarada dhaqaalaha ayaa laga abuuraya hal abuurka iyo siyaasadaha foundationskan wasaaradda dejinaysa wasaaradaha kalena inay ka dab qaataan cilmi baarista labor market survey ama labor information systems marka aad soo saartaan inay wasaaradda tiraahdo wallahi dhimaanku halkaasuu jira jaamacadaha iyo iskuulaadka Soomaaliyeedna warbixintiina ay ku saleeyaan waxbarashada ay dadka siinayaan waxaan aad u soo dhaweynayaa halka idinku xusan inaad daraasayn ku sameynaysaan aagaga kala duwan ee hadda dadka xirfada lagu baro oo taa marka aad ka bogataan aad rabtaan inaad hanaan qaran oo shahaado bixinta farsamo yaqaanadana soo saaraysaan anigoo soo ururinaya waxaan aad u bogaadinayaa dadaalka wasaaraddan ka muuqda ma uun ahaa in hoggaankeedu uu ku ammaan yahay laakiin ragga iyo hablaha sida mar dhaweed la ii sheegayay wiigii 5 cisho in la geliyo in sharciga laborka dib loo eego in arrimihii tifaadka la eego arrimahaas waa arrimaha miro dhalkooda sida loo arkaa dadka ay ku arag tahay yani xilliga hore ee asaaska la soo dhisay dadkii waxa laga yaabaa inay midhihii toos u gurtaan bay rabaan aad baan u bogaadinaynaa waxaan se idinku daraya haddii 10 sano ka hor 8 sano ka hor 5 sano ka hor dalabka dadka ka imanaya uu iska yaraa hadda deegaanadii la xoreeyay iyo ma arkaysaa xawaarahan dawladdan ay ku dhaqaaqday iyo filashada ummadda Soomaaliyeed way isla socdaan hadda Masagawa iyo Galcad iyo Ceelbuur iyo Jilib oo iyana ayaamaha aan fogeyn la qaban doono shaqo abuurka ku darsada oo hadda 4 district xamar ku yaala iyo magaalooyinkii xorta haay oo ha ku koobinay dhibaankii way fara badan in dhibaan supply karta ku shaqeeyaan anana way ku garab galeynaa